ducada iyo quraan akhriska walaalkeen senator gaagaab la ajligii waan idinkaga mahad celinayaa dhammaantiin anigoo ku hadlaya magaca aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaagaab senator gaagaab muddo dheer oo ku siman 50 sano waanu isnaqiinay dalkana aanu u wada shaqaynaynay wuxuu ahaa marka hadda anigu halkan maanta kuma koobi karo taariikhdiisa iyo waxqabadkiisii dalka muddadii uu dalkani weliba fiicnaa ee uu ka soo shaqeeyey hase yeeshee hadda siduu sheekhu inoo sheegay hadda Sheekh Cali Wajiis ilaahay un baan dhimanaynin laakiin naflay kasta way dhimanaysaa waynu kala horeynaynaa walaalkeen inteenna hadda nool uu ka horreeyo qaar baa isaga ka sii horreeyey waxaan idinkaga mahad celinayaa gaar ahaan xubnaha golaha shacabka iyo marti sharafta kale ee Sheekh Xasan Wajiis iyo aanu dadkan garanayo odayaasha Maca Saalim Cali iyo Ibro iyo dhalinyaradan tirada badan ee ka soo qayb gashay waa idinkaga mahad celinaynaa maanta halka waxaynu isugu nimidno inaynu nidhaahno quraan u akhrino ilaahayna inuu inaga aqbalo ducadeenna uu jannadii firdowsa geeyo ilaah ugu dambi dhaafo inta keliya aynu leenahay maanta intaas weeye waxaanan ku soo gabagabeynayaa ereygayga ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto innagana ha inooga daba naxariisto aad iyo aad baad mahadsantihin